update ugu dambeeyay WhatsApp-ka iyo farsamooyin cusub oo lagu soo kordhiyay oo aad ku anfici doona talo maxay yihiin assalaamu calaykum ku soo dhawaada muraso.com farsamooyinkan cusub ee WhatsApp-ka waxay noqon doonaan afar farsamo farsamada ugu horeysa waxay noqon doontaa WhatsApp link kaasoo ka caawin doona ama ku sahlaya inaad ka maarmi kartid adeegii ama application-kii magaciisa loo oran jiray Zoom sida la yaqaano waxa la isticmaali jiray marka meeting-ka casharada online-ka sida iyo wixii la mid ah haddaba farsamadani waxaad kaga kaaftoomi doontaa application-kii ama adeegii Zoom loo oran jiray haddii aad computer ku isticmaali jirtay haddii aad mobile ku isticmaali jirtay farsamadani waxay ka caawinaysaa inaad sameyn kartid video meeting ama call meeting taasoo aad sameyn kartid linkigana dhex dhigi kartid group ama Facebook meeshan doonti dhigtid qof kasto WhatsApp isticmaala adduunyada daafiyeeda uu ku soo biiri karayaa linkigaaga oo aad podcast bad u hadli kartaa ama aad u isticmaali kartaa haddaba farsamadan call link la yiraahdaa waxay ka caawinaysaa xaggii bariga hore WhatsApp-ka marka group meeting ama call meeting la sameynayo 8 qof uu maximum ku ahaan jiray ama inaad 8 qof ay ugu badnaadaan xagga call-ka hadda aad baa loo badiyay tiradii maadaama linkigan lagu soo daray oo dad badan soo qabsan karaan farsamadan labaad waxa loo yaqaanaa ball option sida loo ogsoon yahay Facebook-ka Twitter-ka iyo Instagram-ka ayaa isticmaala waa adeegga codaynta ama lagu soo kala dhigayo kala dooro 3 su'aal baa la dhigayaa 3 jawaab mid dooro deetana dadka jawaabta u badan ay doortaan ayaa halka ka soo baxda adeegaas ayaa maanta WhatsApp-ka lagu soo kordhiyay waxaan si aad u anfici doonaa dadka ama teamka groups-ka isticmaala kuwaasoo ka caawin doono haddii qof ra'yi la yimaado ra'yiga inuu 3 option qofkii dadkii siin karayo deetana uu dadkii ay ka dooran karayaan ra'yiga ay ugu talagaleen ama halkaas dooda ka bilaabi karto marmarka qaarkood ma samaysataa group aad kaliya ku jirtid si aad ugu kaysatid xogta aad u baahan tahay iyo linkiyada iyo sawirada si aanay xogtu kaaga lumin ama meel kale aanay kaaga tagin taasoo ku noqoto xasuusin ama ma samaysaa number kale oo aad leedahay inaad ku dirsan kartid haddaba WhatsApp wuxuu soo kordhiyay feature cusub ama farsamo cusub farsamadaas oo ka caawin doonta oo noqon doonta qodobkeena saddexaad farsamada magaceedana waxa la yiraahdaa message yourself waxaad tagaysaa xagga sare calaamada WhatsApp-ka xagga message-ka qofka looga diro waxaad arkaysaa option yar oo kale message yourself numberkaagii iyo sawirkaagii meesha ku qoran kadibna waad taabanaysaa waanad galaysaa halkaas si direct ah ugu kaydsanaysaa haddii aad ka gashid computer meel kale aad ka gasho WhatsApp-kaaga markasta xogtaadu waa ku amaan waana la helayaa farsamadan u dambeysay ee afraad waxay ka caawin kartaa haddii qof kuu soo diro SMS ka kooban sawir iyo qoraal wada socda aad deetana damacday inaad u forward garaysid qof kale adigoo ka reebaya qoraalkii haddaba farsamadani waxay ka caawinaysaa inay ku kala reebi karto qoraalkii iyo sawirkii oo deetana aad u baahan tahay aad diri kartid haddaba si aad uga faa'iidaystid adeegyadan ama farsamooyinkan cusub ee lagu soo kordhiyay WhatsApp-kaaga fadlan iska update garee WhatsApp-kaaga